psychology-gu horta anigu aqoon umaan lahayn markaan masalan high schoolka dhiganayay. Waa dambe markaan college-ka bilaabay yaan buug akhriyey. Marka buugga wuxuu ku saabsanaa educational psychology wax la yidhaah. Marka badanaa wuxuu ka hadlaya ciyaalka yar ee iskuulka yimaada waxbarashadooda waxyaabaha ka celinaya inay si fiican wax u bartaan. Marka qayb ka mid a waxay ahayd inuu ilmuhu emotional problem uu qabo. Marka buuggaasi wuxuu ka hadlayay emotional problemka masalan guriga waxa ilmaha ka soo gaara. Masalan hadduu aabihii balwad leeyahay, haddii maxaa la yidhahdaa dagaal guriga ka jiro, raadka ilmaha ku yeelanayaan emotionally iyo si ay waxbarashada wax ugu dhimayso. Marka buuggii baan aad ula dhacay. Kabacdi Maraykankaan imiday. Maraykanka markaan imiday class psychology aan qaatay. Marka classkii si fiican baan uga helay. Marka textbook-ga waxaan u akhrin jiray sidii novel oo kale. Waa interest weyn iyo xiiso badan baan ayaan u hayay. صح. So then waxaan major garaynaya education markaas. Aduu sanadkii ugu dambeeyay seniorka ay macallimadii igu tiri waad ku fiican tahay maad major graced. Marka waxa yaab lahaa inaanan garanaynin waxa psychology-ga lagu qabto. In cilmi ahaan waan ka helay صح. laakiin aqoon uma lahayn psychotherapy-ga iyo waxyaabahan kale.